daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan waxaan ku suganahay hoteelka Crown ee magaalada Hargeysa hoteelkaas waxaan kula kulmay nin inta badan dadka YouTube-ku ay kulay garan doonaan dabcasar adiga magacaaga saddexan iyo hawlahaas faahfaahin doona marka hore magacaaga saddexan noo sheeg Abdurrahman Abdullahi Haji Naynas dabcasar Badriyo ويا بعض ما هات بدري ومهن سفيان وكاوس لقرنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة سفيان يقول إذن سي بدر إذن كو مركب بدر وما شاء الله ولا بدر وتجدنا هالكاس مركب هرد تبع سر محيه مقعس ولا لو حاول ودلال وقرح و عربي ماشي لقد هو دين عصبوا ويهدي لا يكيد معيو طبعا ريبر برونا حاجه دبع عصر دي موسى يا غرنيا دي لا يكيد معي موسى بخي دي ريبر بلا غرنيا دي لا يكيد معي marka dab casar weey dii la yكيد dab casar hadii la yكيد naynastiisi in casbu aha oo cad oo dii la yكيد bajilsan oo bayxawa dii la yكيد معي taas loogu magac daray way faafahinta kale waa u gali doonaa maanta waxa timid magaalada Hargeysa nooga waran imaatikaaga xaqiiqdii lama soo koobi karo shucuurtayda farxadda reereynta wanaaga aan dareemayo ehelnimada sokeeynimada Soomaalinimada wax aan filanaynin wixii ay soo imaalida koonfurtu gaar ahaan ay bumbuuno ilaayeen free dab casar bandahayna hadii la yكيد ma ama god dheer baa lagu ridaya ama maxaa la jilcu wala mandheera maxaa la halka jeel dheer baa lagu ridaya war waxaas aniga yaa baro isla ma laba guuta taagan airportka oo ku qaban doonta mise waxaa la idhigay fiyorayaal iyo ubax iyo kaarbad sidii boqorada la isoo dhaw sheekh yani xaqiiqdi yani abitaan cunitaan hoteelada la deji kala iska arag marka barwaaq been ba qurbaat Allah been dadka qaar waxay lahaayeen munaasabada madaxweynaha xil wareejinta ayuu u socday bal hadda imaatikaagu waxa uu la xiriiray noo sheeg madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa jecelaydna inay yimaadaan nacam anigu waan goostay inaan imaado soo gaaro kana qayb qaato hadii la yكيد maayo ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu xilka la garab galo ilaahayna u sakhiro madax iyo wasiiro ilaahay ka baqaya oo geesiyaala oo daacada oo la garab gala hawshatan hadii la yكيد ma ilaahay subhanahu wa ta'ala an ka bariya طبعا يعني de musana waana bumbuuniyay hadii la yكيد maayo intii aan la dooran ka hor wali de hadda iga taagantahay muuse ii geeyay hadii la yكيد maayo waa la ii waa lagu geynayaa bal hadii la yكيد maayo دي فرماجة إيجاية هيد والوجية سماي والوجية نيابي والرجينا أنا لكل مركا الله لا قرب قلم الحوينا وأنا أنمد وأنا أركينا إن شاء الله إلهنا قرنك يدلك يدتك الله برواقي أن إنتانو هاي يوتيوب يدا إيوه الرمها سعاب بعد كتاي سبب قلا وحبة ودكتا قلا وحيرهن شيخ قلا كرسي كلا يكون طليران سيرسيتو كيرك هالكيدي بل هي هولها كور حقيقي إلهي وحن كبرينا إنه هرت قول كنا قول سديدة وكردقو خلطات بدن وانا قدعان oo annaga ma kaftan aan ka dhigano ama yanaan ka dhigan khalad badan waana ka dhacaan laakiin waxa jira waxyaalo badan oo xaqiiqo oo dadku ay u baahan yihiin oo xagga ijtimaaciga ah oo dhalinyaradu ay u gaar ahaan dhalinyaradu ay xiiseeyaan oo diintuna ay aad xoog u saartay kana sheekaysay yani xaqiiqdii yani ceebna aan ahayn laakiin xogaa waxa lagu dhalay aniga alfaada adag ama aan asturnayn oo aan adeegsado oo laga fiican yahay waana qaatay talooyinkaas marka walaal ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeena inuu inoo hagaajiyo dhalinyaradana waxaan leenahay yaa macshara shabaab man istadaaca minkum alba'ata falyatazawaj dhalinyarada qofkii awooday inuu guursado u guurso marka guurku iyo yani sharaftiisa iyo karaamadiisa zinada iyo cudurada laga qaado iyo yani aydiskiyo East Africa hadda ku faafiya oo aad u faafiya ilaa loogana baahan yahay qaranka Soomaaliland inay dhalinyarada wacyi gelin xoog leh ay u sameeyaan oo hadii la yكيد maayo marka anigu salisaytuun baan ka shaqeeyay laakiin dhalinyaradii halkaas wacyi gelin guurku inuu xalaal yahay fiican yahay yani opposite ka wax aan hadii la yكيد maayo sida hadii la yكيد maayo cudurada khatarta oo STD sexual transmitted disease loo yaqaano sida HIV herpes gonorrhea chlamydia waxa soo idil hadii la yكيد maayo oo farabadan hadii la yكيد maayo marka walaalkay yani aad bad ma santahay yani su'aashaas qiimaha badan hadii la yكيد maayo in arrimaha aad ka hadasho dad badan waxay arkaan inaanay sax ahayn dad waxaana la yiraahaa sheekhna waad ahayd diintu in qaab caynkaas looga hadlo wax daliil ma yahay صحيح يعني سؤال سعد ويدي سوالله
waaba aniga hadda kuu sheegayba yani diintu sida ay uga sheekaysay fieldigan ama maadadatan haddii ilahay ku idmaayo guurkii iyo xuquuqdiisii iyo raaxadii ama haddii ilahay ku idmaayo sida loo raaxaysanayo iyo usluubteedii iyo yani ninka iyo haweenaydu xaqa ay isku leeyihiin iyo haddii ilahay ku idmaayo yani gabdhaha xurulcaynta iyo jirkooda ilaahay tilmaamaya indhahooda jirkooda xubnahooda yani xataa gabdhaha aan lasoo taat yani hadda ma doonayna inaynu ku dheerano hawshaas laakiin yani qur'aanku ma helaysid book romancy ama jacayl ama ka sheekaynaya oo hawlaha yani qur'aanka suu uga sheekeeyey ama u faahfaahiyey ma jirto haddii ilahay ku idmaayo kutubta fiqiga haddaad fiirsa hadii ilahay ku idmaayo yani waxyaalaha ka dhalanaya ninka iyo haweenaydu marka ay wada kulmaan qubayska ka dhalanaya waxyaala badan baa ka dhalanaya oo yani marka yani culammadu sibay u tilmaami jireen yani af carabiya tacbiirin jireen xashafa iyo wax lamid hadii ilahay ku idmaayo marka waa laga fiican yahay de waaniga ku iri de hawlahaasna iminka waaba ka gaabsaday oo aniga laftayga hadda awoowo inaan noqdaan ku dhawaay laakiin in allah laa yastaxyi min alxaq waxaa loo baahan yahay dhalinyarada in la wacyigeliyo oo laakiin wixii xunna laga wacyigeliyo hadda maalan baashaal baa lagu leeyahay baashaalki yani zinadii waxay noqotay piece of cake maalan yani gabar iyo wiil baa iska xaysanaya hotel bay isla tegayaan ama meel bay isla tegayaan ama gacanta is qabsanayaan ama aroos baadhi baa jira ama baashaal haddii ilahay baa lagu leeyahay marka waana wax zina ah ilahina wuxuu leeyahay walaa taqrabu الزنا marka xaqiiqdii dhalinyaradu waxyaalaha factska oo wadaado badan ay ka sheekeen ama ay ka gaabsadeen inaan soo bandhigay laakiin de inaan ku talax tago ma ahayn oo de hadii la guud hadda kadib ma joojin sawaad wadas yani waxyaalo badan oo aan ka gaabsaday way jirayaan sida maalan ba criticizing condemning iyo hadii la guud maayo qof cambaarayntan iska socota iyo cayda iyo qabiil in laga hadla iyo shakhsi in loo gafa iyo waxyaalahaas waxyaala yani adduunya aakhiraba aan sharaf ayna dilaa kun waxaana waxyaala duubmaya oo youtube gelaya oo ilaa qiyaami saaca kugu markhaati kacaya marka waxaa waye qofku muxuu ka faa'iidayaa wax yaroo kuu qosla waxba kuu tari mayso adigoo walaalaha ama qof ama qoys ama qaran wax ku xadgudbaa dilaa kudmaan marka waxaan rajaynaya insha allahu tacaala wax productive ah inaan soo bandhigi doono oo ummadda anfacaya si cilmiyanna ah waxaan ka baarandegay oo aan u sameeyey lesson planning awal anigoo xiiqayo ordahaya ayaan soo geli jiray waana sii dayn jiray sax editing baa jira Soomaa maxaa sameysay idinku maxaa samey jirteen yani ya hadda youtube ka ma sii daysaan misawaad aru daariyo waxay isku warsaas ku geli jiray marka taas waxay heeday waxyaalo badan oo bila break ina noqday hadii la gudma laakiin iminka bacdi waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala wax cilmiyan ah oo qurux badan oo sharaf leh oo udgoon oo oo aad u fiican insha Allah ta'ala hadiiba ay dhacdo inaan barnaamijyo soo gudbiyo barnaamijyo xagga nabadgelyada xagga guurka xagga walaalnimada xagga midnimada xagga iscafinta dib u heshiisiinta ila yani hada مثلا yani xaalay quruxda badnaayo mudana musabixi ilaahay garab gale uu ka sheekeeyo waxa kamid ah koow waxyaalaha ugu horeeya musuqmaasuq in la diray iyo gogol inuu dhigay nabadeed oo dhammaan ummadii Soomaaliland isu keenayo qabiiladii kala duwanaa dadkii wax kala tirsanayay yani power sharing xukunka la qaybsado la wada leeyahay si fiican la wada leeyahay oo dadkii ay midoobaan u yadiilka xuquuqdana ay baxdo hasan sheekh arrimaha waan geli doonaa laftiga berberaawi waan burcaawi waan haye de qaranka yaa wax ka dhisto hadii la si kooban qoyskaaga baa u timid baa lagu yiri arrinkaas ma jira ha yani carruurtooda halkan degan tahay hadii la gudmay ma sha Allah waa qarankoodii waa dalkoodii waa ubaxa Soomaaliland ay ku faanto gabadheedu jaamacad bay dhigataa ma sha Allah inay sidoo kale halkan soo wax bartaa marka waa dalkoodii anna waan u mid dadkayga ma sha Allah ayaga kaliya ma aan dadka dhan baa dadkaygii oo dhiigay oo dhacaankaygii oo ehelkay oo ma sha Allah yani ma sha Allah Allah sharfo dhamaan intee lagina joogtaa laga yaabo insha Allah waxa ii qorshaysan 2 bilood baan soo goostay February 5teeda inaan Mareykan ku noqdo 4teeda laakiin Hargeysa inaan ka baxo kowda baan rajaynaya inaan ka baxo baa ii qoran February Ukraine baan ku noqonaya markaas insha Allah aan 4ta ka baxayo insha Allah hadii aan noolnahay si kooban dad waxay yiraahdaan reerihii sheekhu Madaynino saliidi waxa dhinac ka wada iyo arrimahaas oo dhan haye maanta ay saamaxna miya taaganta walaal waxa weeye bani aadam oo dhow way gafayaan
qofka gafana waxaa u fiican sida nabigu yidhi kuwa ka soo noqda khaladkooda bug waxaa jira hadda aan watay oo ah how to influence people how to influence and influence people waa saaxiiba kasbo si saaxiibada loo kasbado waxaa ka mid a qodobadiisa do not criticize do not condemn ha cambaarayn ha yani sheegin waxa faagfaagin waxaa ka mid a admit your mistakes khalad markaad gasho hayse soo liqdaarine waan gafayde haddii la kid maayo daaruuna dee waxaan leeyahay dhammaan soomaali weyn gaar ahaan qaranka somaliland waarda wixii khalad iga dhacay yaa miskiinka alle meel dheer ma jire waarda raalli ahaada dadka si ku xantaa waxay dhahaan hadda sheekhu wuxuu ka dhiganayuun caanimo iyo arrimahaasi youtube-ke bal hadda arrintaa ka war xaqiiqdii iguma jirin iscaan bixi waxyaalaha soo caan bixi waxaa ka mid ah youtube anigu dadka ma ceshado marka dadku ayaga kala qaata haddii way xadar ma dhahayo laakiin ayaga qaata marka ayagu meelihii kala badnaa ay ku tuurayeen baa keentay laakiin caannimada hadday noqoto rasuulkeenu alayhi salatu wasalam wuxuu yidhi ina allaha yuxib alcabd attaqiy alkhafiy ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka allah ka cabsada oo qarsoon oon caanka ahayn laakiin haddii aad ilahay agtiisa caan ka tahay dadkuna aysan ku aqoon kee fiican inaad ilahay agtiisa caan ka tahay oo dadku aysan ku aqoon iyo in dadka agtooda aad caan ka tahay oo ilaahay uusan ku aqoon kee fiican wax ka rabbi baa wanaagsan marka anigu waxaan doortay ilaahay agtiisa inaan caan ka noqdo dadkana haddii ay jeclaadaan oo dee caan aan noqdane dee waa wax ilahay kusiiy ilahay hadduu intale macaldoon kale dadku way jecel yihiin maasha allah de qof hadduu ilahay jeclaado jibriil buu u dhawaaqaa jibriilna mala-ul aclaa buu u dhawaaqaa fa yuudacu lahu alqabuul fi lard jacaylkii baa dhulka loo gelinaya marka caannimadaas iyo jacaylkaas waxaan ku heli karnaa daacada ilaahay sharafta wanaagga alla kacabsiga ayaynu ku heli karnaa meesha aan ka raadinayno xumaan iyo cay iyo munaafaqad iyo isku dir iyo xan iyo qoys ama qaran ama dad loo gafo haddii ilahay kudma waxaa laga heli karaa dhinaci fiicnaa baa laga heli karaa walaale ugu dambayntii aad iyo aad ayaad marka hore u mahadsan tahay telefishinka eryal iyo kelmadda u dambaysa oranaysa waxaan leeyahay low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim ilaahay baa yidhi haddaad haddaad bixisid waxa adduunka yaalla oo dhan ma midayn kartid dahab iyo luul iyo wax kasta gold silver batrool waxa walba si jagooyin xataa qaybi haddii ilahay ku hidmaayo yani hadda qaar baa ka rajaynaya muuse bixi inuu maaragtay jagooyin uu qaybiyo oo isku jeclaysiiyo dadka wax lama deqsiin karo laakiin waxaa la deqsiin karaa maxay dabiicad wanaagsan iyo run iyo cadaalad yaa dadkii la deqsiin karaa marka ilaahay waxaan ka baryaa shanta soomaaliya allah qulubtooda isu keeno waa dad eela wada dhashay luqad diin qiblo rasuul wax walbaa ka dhexeeya waxay wadaagaan cid wadaagta male ilahay waxaan ka baryaynaa marka inuu qulubtooda isu keeno soomaali weynna allah mideeyo cadowgoodana allah ka qabto laakiin marka muuqaalkaad ku jirta gaban baa tahay imika wadada leegtay ka warranta sheekada aad iyo aad baad u mahadsan tahay malaa kaba dhaadheer baa qabaa u malaynaya xoogaa baryaha rag iyo dumarba waxbaa lasmaryaabaa la yiriyo sunniyo beena iyo haddii ilahay ku idmay kaba dhaadheer iyo wax wada beena dadkii qalab wada beenaba dadkii ku ha maya saliid saytuunkaas un baan iska marsadaa wax kale ayadina waa wataa aad iyo aad inaad argacli aad iyo aad inaad argacli marka tvgaaga aad buu mahadsan yahay yani waxyaalaha sharafta aad qaranka u haysid aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay midnimada nabadgelyada horumarka dhaqaalaha tacliinta tawjiihinta dhalinyarada gaar ahaan oo 75 dhalinyaro ah aad iyo aad baad u mahadsan tahay tvgaagana waxaan rajaynaynaa inuu caalamka dhan gaari doono insha Allah shukran aad iyo aad baa mahadsan